Dowladda Iiraan ayaa qabatay dilkii Ayatollah Khomeini kadib basaaskii ay ugu raadinta badnayd muddo 14 sano ah. Waxa ay rideen indhihii Israa'iil ay ku dhex lahayd dowladda Iiraan, Daariq Maxamuud, ninkii daaliyay sirdoonka Iiraan, laakiin ugu dambeyn bannaanka iskeenay dilkii Khomeini kadib xilli uu ku howlanaa inuu ka faa'iideysto aaska Ayatollah Cali Khomeini. Haddaba sidee loo qabtay? Maxayse tahay warqadda la yaabka leh ee qiraalkiisa ee la turjumay? Muddo sanado ah hay'adda sirdoonka Iiraan ayaa ka digaysay in gudaha dalkaasi ay ka shaqaynayaan shabakado basaasiin ah oo qarsoon. Warbixino sirdoon ayaa tilmaamayay in qaar ka mid ah shabakadahaasi ay xiriir la leeyihiin hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad, balse toddobaadkan xaaladda gobolka ayaa si lama filaan ah u gashay marxalad aad u khatar badan kadib dhacdo weyn oo gilgishay dalka Iiraan. Toddobaadkan waxaan wada ognahay in hogaamiyihii sare ee Ayatollah Cali Khomeini lagu dilay duqeyn ay fulisay Israa'iil iyo Mareykanka oo iskaashanaya. Dilkaasi kadib dalka oo dhan waxa uu galay murugo qaran iyo feejignaan amni oo aad u sareysa. Isla markiiba kadib weerarka, Iiraan waxa ay bilowday inay weerarto oo gantaalo ay ku garaacdo Israa'iil iyo dalal badan oo ka mid ah Khaliijka, halka Israa'iil ay si degdeg ah u bilowday inay raadiso meelaha qarsoon ee Iiraan ay ka soo ridayso gantaalada. Goobahaas badankood waxa ay ahaayeen xarumo qarsoon oo ku yaala dhulka hoostiisa ama buuraha hoostooda, halkaas ayay Iiraan ka tuurtaa gantaalada fogfog. Sidoo kalena waxaa ka duula diyaaradaha daroonka. Israa'iil waxay si gaar ah u doonaysay xog sir ah oo ku saabsan godadkaas, saldhigyada qarsoon iyo goobaha militari ee dhulka hoostiisa ku yaala si ay u burburiso oo ay weerar ugu qaado. Gantaal kasta oo Iiraan laga rido ilbiriqsiyo kadib, diyaaradaha Mareykanka Israa'iil ayaa isku dayay in meesha uu ka soo dhacay ay burburiyaan si ay u joojiyaan weerarka Iiraan ay soo qaaday. Sidaas darteed, si loo helo xog sax ah oo ku saabsan meelaha laga rido gantaalada iyo saldhigyada dhulka hoostiisa ah, waxaa loo baahan yahay xog sirdoon oo aad u xeel dheer. Isla waqtigaasi, dowladda Iiraan waxa ay ku dhawaaqday in 2 maalmood kadib uu dhici doono aaska Ayatollah Cali Khomeini oo lagu qaban doono magaalada Tehraan. Waxaa la filayay in aaska ay ka soo qaybgeli doonaan madaxda ugu sarreysa ee dalka, saraakiisha, ciidamada iyo kumanaan qof oo shacab ah. Arrintani waxa ay keentay in ammaanka caasimadda si weyn loo adkeeyo, xilli weli ay socdeen duqeymo iyo gantaalo magaalada ay ku wadeen xulafada Israa'iil iyo Mareykanka. Laakiin sirdoonka Iiraan waxay ku howlanaayeen xog kale oo aad u xasaasi ah. Warbixin sir ah ayaa sheegaysay in koox basaasayaal ah ay gudaha magaalada ku sugan yihiin, kuwaas oo isku dayayay inay ururiyaan xog ku saabsan goobaha laga rido gantaalada, dhaqdhaqaaqyada ciidamada iyo goobaha ay imaanayeen madaxda sare ee dalka inta lagu guda jiro aaska. Kooxdan basaasayaasha ah waxay ka koobnaayeen 4 nin. Raggan waxay ahaayeen dad asal ahaan ka soo wada jeeda dalka Bakistaan, balse si qarsoodi ah ugu shaqaynayay sirdoonka Mossad. Muddo dheer ayay ku dhex noolaayeen Iiraan, iyagoo isku ekaysiinaya ganacsato iyo shaqaale caadi ah. 4 nin waxaa lagu kala magacaabi jiray Taariq Maxamed, Faaruq Axmed, Saajid Qurayshi iyo Nadeem Xaydar. Laakiin waxa arrinta ka dhigay mid aad u khatarta badan waxay ahayd in kooxdaasi uu ku jiray nin muddo sanado ah ay sirdoonka Iiraan raadinayeen. Ninkan waxa uu isticmaali jiray magacyo badan si uu ugu qariyo aqoonsigiisa. Mararka qaar waxa uu isku magacaabi jiray Taariq Maxamed, marna Fahad Qaasim, mararka qaarna Saciid Raxmaani. Sirdoonka Iiraan waxa ay aaminsanaayeen in ninkan oo 52 jir ah uu yahay mid ka mid ah wakiilada Mossad ee ugu xeelada badan ee ka shaqeeya gobolka. Marar badan ayaa la isku dayay in la qabto, laakiin mar kasta waa uu baxsan jiray. Markii hogaamiyaha Iiraan la dilay oo dagaalka gantaalada uu bilowday, ninkan iyo kooxdiisa waxay heleen amar cusub. Amar ka yimid sirdoonka Mossad oo ku amrayay inay u safraan caasimadda Tehraan si ay u fuliyaan howlgallo cusub. Toddobaadkan gudihiisa ayay raggan si qarsoodi ah u soo galeen caasimadda. Qorshahoodu waxa uu ahaa inay xog ka helaan goobaha militari ee ku dhow Tehraan iyo sidoo kale meelaha ay imaanayaan madaxda sare inta lagu guda jiro aaska Ayatollah Cali Khomeini. Intii ay joogeen magaalada, raggan waxa ay bilaabeen howlgallo basaasnimo oo kala duwan. Qaar ka mid ah howlgalladoodu waxay ahaayeen inay qalab raadraac ku xiraan gawaarida ciidamada si loo ogaado dhaqdhaqaaqyada halka ay ka wadaan. Waxay sidoo kale qalabka wax lagu dhageysta ee basaasiinta ay ku dhajiyeen gawaarida saraakiisha militariga si ay u duubaan wadahadallada iyo qorshayaasha amniga. Qalab kale ayay ku qariyeen meelaha u dhow saldhigyada militari iyo goobaha laga rido gantaalada si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda. Laakiin qorshahooda ugu weyn waxa uu la xiriiray aaska Ayatollah Cali Khomeini. Kooxdan basaasayaasha ah waxay isku dayeen inay ogaadaan halka ay istaagi doonaan madaxda sarsare ee dalka, meelaha ay mari doonaan kolonyada saraakiisha. Xogtaas ayay doonayeen in si degdeg ah ugu gudbiyaan Mossad si loogu isticmaalo hagida gantaalada haddii weerar cirka ah uu dhacayo. Xilligaas waxay diyaaradaha Israa'iil iyo Mareykanka ay ka wadeen duqeymo meelo ka tirsan agagaarka caasimadda Tehraan ee dalka Iiraan.
sirdoonka Iiraan waxay bilaabeen inay si qarsoodi ah ula socdaan raggan. Dabagalku waxa uu bilaabmay kadib markii ciidamada ilaalada saldhig militari ay heleen qalab yar oo bir ah oo lagu xiray hoosta mid ka mid ah gawaarida ciidanka. Markii qalabkaasi la baaray waxaa la ogaaday inuu yahay qalab raad raac oo si qarsoodi ah xog u bixinayay. Taas kadib sirdoonka ayaa baaray kaamiradaha ku yaalay wadooyinka iyo meelaha gawaarida la dhigayay. Sawirada kaamiradaha ayaa muujiyay nin dhowr jeer ku wareegayay gaari ka mid ah ciidamada isla markaana hoos uga xirayay qalab. Sawiradaas ayaa la diray waaxda aqoonsiga sirdoonka Iiraan. Halkaas ayay khubaradu ka bilaabeen inay si faahfaahsan u baaraan wejiga ninkaasi. Inkastoo uu isku dayay inuu isqariyo isagoo gar weyn iyo timo leh, haddana falanqaynta wejiga ayaa muujisay isku ekaansho aad weyn oo u dhexeeya sawirka cusub iyo sawiradii hore ee sirdoonka Iiraan ay hayeen. Laakiin xaqiijinta ugu dambeysay waxay timid kadib markii la qabtay mid ka mid ah raggii kale ee kooxdaasi ka mid ahaa. Intii lagu guda jiray baaritaanka, ninkaasi waxa uu qirtay inuu hogaamiyaha kooxdaasi uu yahay nin lagu magacaabo Taariq Maxamuud, isla markaana uu isticmaalo magacyo kala duwan si aan loo qaban. Sirdoonka ayaa markaasi mar kale dib u eegay sawirada kaamiradaha iyo xogtii hore. Waxaa sidoo kale la helay taleefan qarsoon uu ninkaasi isticmaalayay. Gudaha taleefankaasi waxaa ku jiray farsamooyin sir ah iyo xiriiro u dhexeeya shabakado basaasiin ah oo isku xiran. Markii xogtaasi la isku diray, sirdoonka Iiraan waxay si rasmi ah u xaqiijiyeen in ninkaasi uu yahay Taariq Maxamuud, ninkii muddo sanado ah ay raadinayeen sirdoonka Iiraan. Taariq waxaa lagu qabtay ugu dambeyn gudaha Tehraan kadib dabagal socday dhowr saacadood. Markii la qabtay waxa uu ahaa nin si aad ah u degan oo aanan muujin wax cabsi ah. Baaritaan dheer kadib, sirdoonka Iiraan waxa ay sheegeen in qabashadiisu ay tahay mid ka mid ah guulihii ugu waaweynaa ay gaareen sanadihii u dambeeyay. Haddaba Taariq waxa uu qoray warqad qiraal ah oo inta badan laga qoro eedeysanayaasha la qabto, taas oo dhaqan ka ah inta badan wadamada caalamka, gaar ahaan dalka Iiraan. Warqadda qiraalka Taariq uu soo dusiyay mid ka mid ah warbaahinada Iiraan ayaa sidan u qornayd: Aniga magacaygu waa Taariq Maxamed. Waxaan ku dhashay magaalada Multaan ee dalka Bakistaan. Waxaan jiraa 52 sano. Waxaan ka dhashay qoys sabool ah. Noloshaydu waxay ahayd mid adag. Markii aan yaraa waxaan ka shaqayn jiray gaadiidka iyo ganacsiga yaryar ee magaalooyinka iyo xuduudaha Bakistaan u dhexeeya. Qiyaastii 14 sano ka hor, aniga oo weli ku noolaa Bakistaan, noloshaydu waxay ahayd mid caadi ah. Waxaan ka shaqayn jiray shaqooyinka yaryar oo aan ku maareeyo nolol maalmeedkayga. Inta badan waxaan ku lug lahaa ganacsi yaryar iyo safarro u dhexeeya magaalooyinka iyo xuduudaha dalka. Intii aan shaqadaasi ku jiray, waxaan la kulmay dad badan oo ganacsato iyo dad safarro badan sameeya. Maalin maalmaha ka mid ah ayay la soo xiriireen 2 nin oo markii hore iskugu ekaysiiyay ganacsato. Waxay ii sheegeen inay leeyihiin ganacsiyo u baahan qof si fiican u yaqaana wadooyinka, dadka iyo xuduudaha dalka. Markii hore kulamadeennu waxay u ekaayeen kulamo ganacsi oo caadi ah. Waxay i weydiin jireen xaaladda magaalooyinka, dadka halkaas ku nool iyo wadooyinka ay isticmaalaan ganacsatada. Maalmo yar kadib ayaan bilaabay inaan dareemo su'aalahoodu inaysan ahayn kuwo ganacsi oo keliya. Waxay xiiseynayeen dhaqdhaqaaqyada ciidamada, goobaha ay joogaan ciidanka, iyo xaaladda amni ee meelaha qaar. Markaas ayaan bilaabay inaan fahmo in raggaasi aysan ahayn ganacsato caadi ah. Markii dambe waxay si cad iigu sheegeen in shaqadoodu ay ku lug leedahay howlo sirdoon. Markaas ayaan ogaaday, waxaana si degdeg ah u diiday inaan iyaga la shaqeeyo. Waxaan ka baqay khatarta ku jirta shaqadaas ay ii soo bandhigeen, laakiin waxa ay bilaabeen inay igu cadaadiyaan siyaabo kala duwanba ha ahaatee. Waxay ogaayeen xaaladayda dhaqaale oo adag. Waxay ii sheegeen in haddii aan la shaqeeyo, noloshaydu ay isbedeli doonto. Waxay i siiyeen lacag yar markii hore si ay iigu muujiyaan inay dhab ka tahay shaqadaani. Intaas kadib, cadaadis iyo duruufo badan awgood, ugu dambeyn waan aqbalay inaan la shaqeeyo. Markii aan ogolaaday, waxay ii sheegeen inaan u baahanahay tababar gaar ah. Waxaa la ii qaaday meelo qarsoodi ah oo ka fog magaalada. Halkaas waxaa joogay dad kale oo iyaguna tababar qaadanayay. Tababarku waxa uu socday dhowr bilood. Waxa uu ahaa mid aad u adag, waxaana la baray waxyaabo badan oo la xiriira basaasnimada iyo ururinta xogta sirdoonka. Waxaana la baray sida loola socdo dhaqdhaqaaqyada ciidamada iyadoo aan la dareemin. Waxaana la baray sida loo ogaado meesha ciidanku ay joogaan, sida ay u dhaqdhaqaaqaan, iyo sida loo qoro xogtaas iyadoo cid kale aysan ogaan. Waxaa sidoo kalena la baray sida loo qariyo aqoonsiga dhabta ah. Tababaro kale oo gaar ah ayaana la siiyey, waxaana ka mid ahaa sida qofku ugu dhex milmi karo bulsho kale isagoo aan la dareemin. Waxaana la baray sida loo noqdo qof caadi ah ama aan shaki dhalin. Mararka qaar waxaan isku ekaysiin jirnay ganacsato, mararka qaarna darawallo, mararka qaarna waxaan isku ekaysiin jirnay shaqaale caadi ah.
qayb kale oo muhiim ah oo tababarka ka mid ah waxay ahayd sida loo abuuro jahawareer ciidamada dhexdooda, waxaana la baray sida loo sameeyo waxyaabo yaryar oo keeni kara in ciidanku ay ku mashquulaan ama ay ku wareeraan. Waxaa sidoo kalena la baray sida loo tirtiro raadadka. Taas macnaheedu waxa uu ahaa inaan ka taxadarno meel kasta oo aan tagayno, cid kasta oo aan la kulmayno, iyo wax kasta oo aan isticmaalayno. Inta tababarku uu socday waxaa sidoo kale naloo sameeyay tababar luuqadeed. Sababta ayaa ahayd in qofka basaaska ku jira uu u baahan yahay inuu si fudud ugu dhex milmi karo bulshooyinka kala duwan. Waxaan bartay luuqadda Urdu oo ahayd luuqadayda hooyo, laakiin sidoo kale waxaan bartay Farisi, sababtuna waxay ahayd luuqaddaasi waxaa looga hadlaa Iiraan. Waxaa sidoo kale la i baray af Carabiga iyo Ingiriiska si aan u isticmaalo xilliyada aan safrayo iyo xiriirada markii aan sameynayo. Qaybo kale oo muhiim ah waxay ahaayeen beddelidda muuqaalka. Waxaa la i baray sida qofku uu u beddeli karo muuqaalkiisa iyo sida uu u noqdo qof kale. Mararka qaar waxaan jari jiray gar dheer si aan u ekaado qof kale, mararka qaar waan xiiri jiray si aan u beddelo muuqaalkayga. Xilliyada qaar waxaan isticmaali jiray ookiyaale ama muraayado, xilliyada qaarna waxaan isticmaali jiray koofiyad. Mararka qaar timo macmal ah ayaan xiran jiray si wejigayga ay u adkaato in la aqoonsado. Ujeedkaygu waxa uu ahaa in haddii qof uu arko hal mar, uusan mar labaad si fudud ii garan karin. Tababarkaasi waxa uu socday muddo dheer. Ugu dambeyntii waxaa la ii diyaariyay inaan galo shaqo basaasnimo oo dhab ah. Muddo yar kadib waxaa la ii diray gudaha dalka Iiraan. Shaqadaydu waxay ahayd inaan ururiyo xog ku saabsan ciidamada, saldhigyada militariga iyo dhaqdhaqaaqyada militariga. Waqti badan ayaan joogay Dahraan, mararka qaar gobollo kale iyo meelaha xuduudaha u dhow ayaa la ii diri jiray. Sanado badan ayaan ka shaqayn jiray xuduudka u dhexeeya Iiraan iyo Bakistaan. Halkaas ayaan ugu gudbi jiray xog iyo qalab sirdoon. Mararka qaarna waxaan soo gudbi jiray dad kale oo basaasiin ah oo u shaqaynaya Mossad. Muddo dheer ayaan sidaas ku shaqayn jiray. Dad badan oo aan la shaqayn jiray ayaa marar badan la qabtay, laakiin anigu mar walba waan badbaadi jiray. Sababta ugu weyn waxay ahayd in aan aqoonsigayga si joogto ah u beddeli jiray. Dadka aan la shaqaynayo badankood xataa ma aysan ogeyn magacayga dhabta ah. Mar walba waxaan isticmaali jiray magacyo kala duwan. Hay'adaha amniga mararka qaar waxay raadin jireen magacyadaasi, laakiin markiiba anigu magac kale ayaan qaadan jiray. Weligay reer ma yeelan, qoyskaygina dib uguma laaban, waayo shaqadan aan bilaabay ayaa ila dheeraatay. Dhowr sano ka hor ayaan go'aansaday inaan iskaga tago shaqadan. Kadib Bakistaan ayaan galay, balse 3 maalin kadib ayay i soo waceen nimankii shaqadan i geliyay, iyagoo ii dhaaranaya iguna qasbaya inaan xuduudka tago, haddii kalena aan mas'uul ka ahay wixii dhaco. Markaas ayaan dareemay inaan ku jiro halis aad u weyn. Muddo ka hor inta aan la i qaban waxaan joogay xuduudka, aniga oo weli ku jira howlo la xiriira gudbinta xogta iyo dadka basaasiinta ku lug leh. Laakiin dhowaan ayay dhacday duqeyntii lagu dilay Ayatollah Cali Khamenei. Markii dilkaas u dhacay, xaaladdu si degdeg ah ayay isku beddeshay. Waxaa bilowday dagaal gantaalo u dhexeeya Iiraan iyo Israa'iil. Xaaladda gobolka oo dhan waxay gashay dagaal. Wax yar kadib ayaa la ii soo diray amar cusub, waxaana la ii soo diray warqad dhahaysa adiga iyo dhowr qof oo kale u dhaqaaqa caasimadda Tehraan. Howl cusub oo la idiin diray ayaa u baahan tihiin inaad fulisaan. Waxaa sidoo kale la ii sheegay sababta howshaas degdeg ah loo doonayo. Waxaa la yiri tag magaalada, soo bar jawiga magaalada inta lagu guda jiro aaska Ayatollah Cali Khamenei. Soo ogow meelaha ay madaxdu imaan doonto, dhaqdhaqaaqyada ciidanka, iyo sida amniga loo diyaariyay. Waxaa sidoo kale la ii sheegay inaan ururiyo xog kale oo muhiim ah. Waxaa la ii sheegay inaan ogaado meelaha laga rido gantaalada, goobaha daroonada laga duuliyo, saldhigyada dhulka hoostiisa ah, xaaladda ciidamada iyo dhaqdhaqaaqyadooda. Waxaa kaloo la i faray inaan ururiyo xog ku saabsan khasaaraha ay gaarsiiyeen weerarada Israa'iil, khasaaraha ciidamada Iiraan gaaray, kaydadka gantaalada ee weli u haray Iiraan. Waxaa la ii sheegay in xogtaasi ay muhiim tahay sababtoo ah dagaalku si joogto ah ayuu u socday, gantaaladuna si joogto ah ayay ugu dhacayeen gudaha Iiraan. Waxaa la igu yiri adigu magaalada si fiican ayaad u kala taqaanaa, xaaladdu waa mid mashquul ah, ciidamadu waxay ku jiraan dagaal, culays badan ayaa jira, hadda cid ku raadsanaysa ma jirta, taas ayaad nooga faa'iidaysan kartaa. Markaas ayaan anigu u dhaqaaqay Tehraan, aniga iyo rag kale oo la igu soo diray. Waa markii iigu horreysay aan la safto dad kale oo sirdoon igala shaqeeya, waana markii iigu horreysay ee dad ila shaqeeya wejigayga ay si dhab ah u arkaan, magacaygana ay ogaadaan. Markii hore basaasiinta kale waan iska qarin jiray, magac been ah ayaan u sheegi jiray, laakiin xaaladda oo degdeg ahayd wax walba waxay sababtay sidaan. Aaladda basaasnimada degdega ayaa ka ah xaaraam. Intaas kadib magaalada ayaan nimid, waxaan iiga dejiyay guri, aniguna xaafadayda ayaan degay. Markii aan magaalada soo gaarnay,
waxaan bilownay howlo kala duwan. Waxaan isku daynay inaan la soconno dhaqdhaqaaqyada ciidamada, meelaha ay maraan gawaarida militariga, iyo meelaha laga rido gantaalada. Waxaan sidoo kale isku daynay inaan ogaano xaaladda magaalada inta lagu jiro aaska iyo meesha ay istaagi doonaan madaxda sare ee dalka. Laakiin inta howsha aan wadnay, sirdoonka Iiraan ayaa bilaabay dabagal. Qaar ka mid ah qalabkii la isticmaalayay ayaa la ogaaday. Taas ayaa keentay in si tartiib tartiib ah loola dabagalo. Ugu dambeyn, dabagal dheer kadib waxaa la qabtay raggii ila shaqaynayay, kadibna xogtayda ayay bixiyeen. Anigana anoon is ogeyn ayaa la igu qabtay gudaha Dahraan. Halkaas ayay ku dhammaatay shaqadii aan waday muddo 14 sano ah. Daawadayaal, dhacdadani waxay muujinaysaa xaqiiqo kale oo muhiim ah. Dagaalka sirdoonka ee ka socda gobolka marna ma istaago, xataa xilliyada ugu murugada badan sida aaska hogaamiyayaasha ama xilliyada dagaalka. Halkani waa Xalana Media. Haddii ay tahay soo booqashadaadii koowaad, waa ay muhiim inaad nagu soo biirto, like garayso muuqaalka, share garayso, naguna soo biirto. Waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga.